Galcad Media News. Galcad Media News. bismillaahi raxmaani raxiim ismaqal wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Sheekh Shariif oo si kulul uga hadlay xayiraadii laga saaray safar uu ku aadi lahaa magaalada Kismaayo guud ahaan diyaaradaha aada magaalada Kismaayo oo la hakiyay Daacish oo soo bandhigtay ciidamo cusub oo ku soo biiray howlgalna ku dhawaaqday dhaqanka Abgaalo shir xasaasi ah kale xayiraadii Sheekh Shariif gudoomiyaha koonfur galbeed qaabilsan shabeellada hoose oo ku go'doosan deegaan ka tirsan shabeellada hoose warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah weerar dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Yemen hagaag haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhowaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shalay loo diiday in uu ka duulo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlayay xorriyadii laga qaaday iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay go'aanka loogu diiday socdaalkiisa Kismaayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa go'aanka dawladda ee duulimaadka Kismaayo oo isagana saameeyay ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka iyo xorriyadda muwaadinka wuxuuna ka digay qatar weyn oo ka dhalan karta go'aankaasi waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay diiday inay ka garawdo ishor istaagii lagu sameeyay isagoo dhinac kale sheegay in aysan jirin cid ka hor istaagi karta garoonka Muqdisho iyo guud ahaan dhulka Soomaaliya wixii ka dhashana ay mas'uul ka tahay dawladda Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhinaca kale dawladda ku eedeeyay caburinta siyaasiyiinta ganacsatada iyo bulshada rayidka waxa uu sheegay inay afduubatay baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay weerareen gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sidoo kale waxa uu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed in maamul goboleedyada aysan xor ahayn intooda badan wixii ka soo harayna weerar ay ku hayso dawladda Soomaaliya baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aasha adinka idin weydiinaa Soomaaliya inuu intuu fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo wax ay la taasoo saar awood ma u leeyahay maya sax waa okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadeyn ah maxaa cadeynaa arrintaas sheegay waxa cadeynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu waa isqabteen in baarlamaanka la kontaroolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen ma ogidin haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladdan waa dawladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab ha noqdaan ama ha noqdaan madax maamul goboleed dhibaatooyinka dawladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal arku waa kaas sheegay maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeeyaan ma jiro dastuurkii la raba inay dhameystiraan ma dhameystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka kamid ah in shabaab ay soo weerareen oo baabi'iyeen wax ka hadlaamay arag Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu soo hadal qaaday warar sheegaya inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waqtiyo badan uu galay xal u raadinta khilaafaad ka taagnaa gudaha hay'adaha dawladda Soomaaliya kuwaas oo ay xalin waayeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre ugu dambeyntii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan saamiliyada siyaasadda abwaanada culimada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay si degdeg ah iskugu yimaadaan dalka si loo badbaadiyo qaranka maadaama uu qaranku sheegay inuu haadaan ka sii dhacayo waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oo san jirin waxa dhala kara waa gar karti annaga ma rabno intaan iska aamusno markay waxa laabaan inaan indhaha taagno dawladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed
waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tegi karo wax ka weyn halaysa waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa u diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladdeena burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wata ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid Soomaaliya isu timaado mahadsantiin wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh dowladda Soomaaliya ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii Kismaayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay muddo 3 maalin ah la joojiyay dhammaan duulimaadyadii tagi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maamulka hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa shaaciyay in laga bilaabo maanta oo ay taariikhda tahay 23 Sebtembar ilaa 26 bishan la hakiyay dhammaan diyaaradaha tagaya ama ka imaanaya magaaladaasi sidoo kale hay'adda ayaa go'aankan ku wargelisay dhammaan shirkadaha duulimaadyada dalka gaar ahaan kuwa isticmaala garoonka magaalada Muqdisho arintan ayaa waxay dawladdu kaga gol leedahay sidii ay u baajin lahayd mas'uuliyiinta ka qayb galaya xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe dawladda dhexe ayaa gabi ahaanba ka hortimid doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland taas oo dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa booqasho hoygiisa ugu tagay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyagoo ka cariisan xayiraadii lagu saaray garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Imaam Maxamed Yuusuf Cali Imaam iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa madaxweyne Shariif u sheegay in ay ka xun yihiin isoo istaagii lagu sameeyay wafdiga uu hogaaminayay ee ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland waxay sidoo kale sheegeen inay dadaal badan ku bixin doonaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkii ka dhashay xayiraadda la saaray Sheekh Shariif dagaalamayaasha Daacish ayaa dagaalyahano cusub ku soo bandhigay gobolka Bari kooxda Daacish gaar ahaan fariiciida Soomaaliya ayaa soo bandhigtay dagaalyahano cusub oo tababar ku qaadanaya dhulka buuraleyda galgala ee gobolka Bari dagaalyahanadan oo iskugu jiray Soomaali iyo ajaanib ayay Daacish sheegatay inay ka mid noqonayaan ciidankooda ka dagaalama gudaha Soomaaliya sawirada laga soo qaaday dagaalyahanadan oo afku u duuban yahay ayaa muujinaya iyagoo tababar ku qaadanaya mid ka mid ah xiriyaha kooxda Daacish oo lagu magacaabo Daawud al-Soomaali taasoo lagu magac daray tababaray hore looga dilay Daacish mashaacin tirada dagaalyahanadan tababarka ku qaadanaya dhulka buuraleyda ee Puntland marka laga reebo inay ka qayb qaadanayaan dagaalka ay wado dhawaan ayaa dawladda Mareykanka waxay shaacisay inay sare u kacday awoodda kooxdan oo inta badan weerar xoogan ka fulisay qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku xayiran magaalada Marko isagoo ka cabsi qaba hadii uu afgooyo yimaado in shabaab jidka u galayaan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku xayiran magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Marka gudoomiye Najax ayaa toddobaadkii tagay ka soo laabtay agaarka Shalaambood kadib markii ay halkaasi qarax ku weerareen al-shabaab isaga iyo wafdigiisa waxayna dib ugu laabteen Marka oo ah xarunta gobolka Shabeellada Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Marka ayaa noo xaqiijiyay in gudoomiyaha uu dalbaday diyaarad balse ilaa hadda aysan u imaan diyaarad ciidan oo ka qaada Marka si uu u tago magaalada Muqdisho ama deegaano ka tirsan Shabeellada Hoose oo gaadiid looga bixin karo gudoomiye Najax waxa uu ku xayiran yahay Marka waxaana la waayay diyaarad soo qaada sidoo kale waxa looga digay in uu maro dhulka sababtoo ah shabaab badan ayaa wadada ku sugan ayuu yiri qof ka tirsan maamulka Marka oo nala hadlay gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya ayaa wajahaya dhibaatooyin daran oo dhanka ammaanka ah waxaana ku sii badanaya weerarada al-shabaab kii ugu dambeeyana ayaa ka dhacay deegaanka Ceelsaniini oo ka tirsan Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose markaana daawadayaal warkii dibadda
weerar dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka Yemen. Kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha dalka Yemen ayaa sheegtay in isbahaysigu hogaamiye Sacuudiga ay dad shacab ah ku dileen duqeymo ay ka geysteen gudaha dalka Yemen oo ka dhacay gobolka Omran. Ayaa warar laga baahiyay TV-ga Al-Mazari ee ku hadla afka kooxda ayaa lagu sheegay inay ku dhinteen 5 ruux oo isku qoys ah. Xuutiyiinta ayaa sheegay in isbahaysiga Sacuudiga oo duqeymahaasi la beegsaday masaajid ay ku jireen qoyskani markii ay bilaabatay duqeynta. Sidoo kale wararka lagu baahiyay TV-ga ayaa lagu sheegay in la la'yahay 2 caruur ah oo isla qoyska ka tirsan. Ma jirto wax war ka soo baxay dhanka boqortooyada Sacuudiga oo ay kaga hadlayaan weerarkan. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen galcad media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan galcad media news galcad media news